السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أنجعلها ميل والبا دنيا كجوجتان waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho shaqo la'aanta baahsan ee soo wajahday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Canada gaar ahaan gobolka Alberta sanadkan wuxuu ahay sanadkii ugu xumaay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Alberta ay soo wajahday shaqo la'aan baahsan rag iyo dumarba sidaa darteed waxaa loo sababeynayaa dowladda oo ka gaabisay projectyaal badan oo la filanayay sanadkan inay ka qabsoomaan gobolka Alberta sidaa darteed ma dhicin waxaana dhalinyaradii Soomaaliyeed qaarkii cusbay iyo qaarkii hore u joogaba soo wajahday shaqo la'aan baahsan waxayna badankoodu ku sugan yihiin guryahooda taas oo caqabad ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed mana ahayn wixii laga filanayay dalka Canada in shaqo laga weyn doono sidaa darteed dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood waxay iskaga laabteen gobolka Alberta iyagoo ku laabtay gobolada BC, Ontario iyo gobollo kale kuwii harana weli waxay raajicinayaan in si dhaqsi ah ay ku helaan shaqo laakiin sanadkan waxay noqotay sanadkii ugu xumaay ee gobolka Alberta shaqo la'aan tan lamid ah ay ka dhacday waxaanu sugi doonaa sanadka 2025 kaasoo la rajeynayo in gobolkan laga fuliyo projectyaal aad u waaweyn oo hadda ay socoto saasaantooda waana arki doonaa sanadka 2025 iyo sida uu noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Alberta qaasatan magaalada Edmonton. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.